السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندي سلامي دمانا قيارتك وحرنا جنال كسور دوادا عشر كنا مانتو وحكوس سبسين ياي deflection محل دها قرمي سدعدا deflection هرتو وحيد دعدا مركا حبين أي هيسو لبا شقو overloading معناه إنه علاس وسارين ياي لبا شقو ودريمي كرتا مركا عادي بقى هيسو لبا شقو وعلسته لبا دا شقو أي هيسو حين نقنيسا إن أي لبا حبين دفاعدو أما in square iyo xubin ay difaacdo sida example ka horteena ka muuqdo boqorkan dafiir wuxuu sameeynaya wuxuu daafacayaa qalcadan FA diyaalo sidoo kale askarigaasna uu daafacayaa ama square kaas H7 so markaas ayaa waxa dhacdo deflection oo ah in mid kamid ah xoog looga qaato oo la yiraahdo labadaba isku mid difaaci kartid adeer midkan ka tag in la yiraahdo laakiin waxa laga yaabaa inay ku soo dhacdo new interference soo saas ma ahayn sababtoo 10 hore soo galiya jirto interference-ga marka la qeexayo waxay ku kala duwan yihiin interference-ga wuxuu ahay marka xubinta cadowgaaga uu difaacayo xubin kale ama square muhiim ah isla markaasna laga soo farageliyo taas waxay aad lama dilaynin lama qasbaynin laakiin waa la soo dhaxgalay bis xubin kale ayaa la soo dhaxgelinay sidaad hada daawanin fadlan waxaan kugu la talinayaa interference ina daawat marka farqiga u dhaxeeyo waxay tahay taasi lama xoogeynin oo xoog ma ahayn in labada xubin uu daafacayo in aad ka dirtaa tan laakiin waxa lagu qasbayaa in difaaci uu ka tagaa oo hadaan sameeyno askarigan hadaan dilno qasab waxa ah inay disho sababtoo ah qalcadan marka difaaceeda waa laga diray taas ayaa waxa la yiraahdaa deflection waxaan ku sameeynay deflection waa gartay example-ka kale aan gudubno marka example-kan kale waxaan doonaynaa inuu askarigan inoo noqdo boqorad oo aan promotion ku sameeyno boqorad ay inoo noqdo sidoo kale laakiin qalcadan ayaa waxay sameynaysaa square-kii ay ka gal lahayd square-kii kuwin uu ka noqon lahaa askarigeeni soo dadaalay ayuu ka haystaa balse ma isweydiinaysaa labada shaqo u haya maanta waa maxay sababtoo ah qalcadan hal shaqo ay haysaa shaqadaas oo ah in ay askarigan qabato so saasa laga yaabaa maskaxdaada inuu fikirto laakiin si fiican u fiiri qalcadan laba shaqo ay haysaa maxallisay isku dayday G5 waa jawaabta sababta maxay tahay aan dib u celiyo G5 waxay sameynaysaa in qalcadan horta biin laga dhigo oo la yiraahdo ama qalcadan si ama waxaad ka tanaasushaa square-kan aad haysid niyo laba shaqo isku mehin kartid ama qalcada taalo qalcadan aan keensaday G5 qalcadaada ma ogolaanaysa in dhaqaaqday ama qalcadeeda qaado ama adiga aan ku dilo option ma lihid macnaa marka waxa qasaba inuu iska dilo qalcadan si uu uga tanaasulo square-kaas uu daafacayay saas ayaan waxaan ku sameeynay marka deflection okay saas ayay ku dhamaatay okay example-ka saddexaad aan fiirino example-ka saddexaad keeba deflection lagu sameynayaa haddaba ma isku dayday ma xalisay deflection ma sameysay deflection waxaan ku oray waa marka xubin ay isku dayayso inay qabato laba shaqo shaqadaas oo ah inay xubin difaacdo ama square muhiim ay difaacdo ama laba xubin ay isku difaacdo iskuma keen karto markaas ayaa waxa dhacdo deflection inaad tacticadaas adeegsato ma xalisay ma isku dayday waa gartay queen G4 haddaba maxay tahay sababta queen G4 maxay tahay sababta ay u noqotay jawaabta saxda oo aan loo dili karin queentan sidoo kale waxaan isweydiinaynaa queentan labada shaqo ay hayso maxay tahay dib aan u celino queentan horta shaqada koowaad ay hayso waxay tahay inay difaacdo qalcadaas sababtay muhiim u tahay mataqaanaa sababtoo ah qalcadan kale ayaa ku dhagan oo waxaa dhacaya back rank checkmate sidaas awgeed haddaad back rank checkmate daawan fadlan soo daawo waa ku jirtaa waa gartay midda kale daafacaysa waxay tahay in queenteena ay G4 imaado isla markaasna direct checkmate ay sameyso saas ayaa waxay ku haysaa queentan laba shaqo oo inay G4 difaacdo iyo isku ma keen karto inay qalcadan difaacdo saas awgeed ayaa waxa ku kuliftay inuu askarigan soo dirjiyo madowga ka bacdina de queentan la iskaga qadeeyo that's the answer waa gartay example-kan runtii beginner-ga aad ayuu caan ugu yahay fadlan isku day in aad deflection sameyso ma sameysay isku dayday muujeedaa horta ninka labada shaqo hayo yaa laba shaqo ayaa isleedahay ma queentan laba shaqo hayso ma boqorka laba shaqo hayo ma fardaha laba shaqo hayo yaa laba shaqo hayo haddaba haddaan kuu qisho waxaa labada shaqo hayo waa boqorka labada shaqo u hayana waxay tahay marka koowaad queentan ayuu difaacayaa marka kalena F7 ayuu daafacayaa saas awgeed F7 ayaan ka qasbaynaa waxaan leenahay adeer meeshan kuma nagaanaysidii ka kac
saas awgeed queenta waxay noqon doontaa free waa gartay aan ugu gudubnay example-kan kale wuxuu yahay yaa laba shaqo haayo horta saad u ogaatid deflection saad u sameeyay yaa laba shaqo haayo fiiri waxa laba shaqo haayo queentan oo waxay daaficaysaa square-kan f8 ah iyo h7 seen marka uga qaadna waa yaabe seen labadaas ay daaficayso seen uga qaadna iswidi fadlan xali waa ku qashay rook f8 check qasab waxa queentan inay disho sababta maxay tahay dib aan u celiyo fiiri meel uu aadamana de boqorkan waa horena waxaan ku baray hadaadan fadlan soo daawin check soo daawo 10 jeega check marka uu boqorkaada ku jiro saddex wax la xaata hadii laga waayo it means check meeda ku saaran hadii marka koobaad meel aad u baxsata weysid midda labaad xubinta jeegta ku dhayso wax ka disha hadaa weysid midda saddexaad oo ah xubinta jeeg ku dhayso in laga daboolo saddexdaas wala xaata hadii laga waayo waxaan dhaynaa checkmate soo hadda checkmate ma noqonayso waxa joogto hadii queentan joogleen dabcan checkmate noqon lahayd sax laakiin maanta queenta joogto laakiin queenta mar alla markay meesha ka tagto waxay ka tagtay difaaci kale oo ah in h7 checkmate laga saaro that's the end